bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan saaxiibayaal halkani waa runsheeg TV waa bartaayna YouTube-ka ku leenahay saaxiibayaal qodobada warka idinkugu hayna saaxiibayaal waxa ugu waaweyn rooble ayaa safar dhinaca dhulka ku tagay balcad waxaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal ujeedka socdaalka rooble waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday ciidamada Kenya iyadoo oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan daawadayaal ilaa konton madfac ayaa lagu garaacay ciidamada Kenya Itoobiya ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigeen soomali la shaqeynaysay TPL qodobada kale ee saaxiibayaal aan idin haynana waxaa kamid ah hub ka yimid Iran oo la shaaciyay inuu ku dulqulqulayo gudaha Soomaaliya iyo hubka la ogaaday in ay mucaaradka dawladdu leeyihiin si ay isugu hubeeyaan ka hor inta aysan doorashada dalka la qaban sidoo kale saaxiibayaal hubkan ayaa la sheegay in ay hadda dawladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay oo ay qabteen ciidamada badda qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like-na in guri regilisaan insha Allah aynu ku bilowne sida aad hordhac warkayga aad ku daawateen rooble ayaa safar dhinaca dhulka ku tagay balcad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar dhinaca dhulka ku tagay degmada balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe rooble ayaa waxa safarka ku wehelinaya madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe wasiirka ka tirsan xukuumaddiisa iyo saraakiil ciidan waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay bulshada iyo maamulka Shabeellaha Dhexe ra'iisul wasaaraha ayaa booqashadan ugu kuurgalaya xaaladda amni iyo midda nololeed ee degmada balcad iyo deegaanada ku xeeran sidoo kale rooble iyo wafdigiisa ayaa kormeeraya dhismaha wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale la kulmi doona saacadaha uu joogo gudaha balcad waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi ammaanka ayaa dhinaca kale si weyn loo adkeeyay waxaana ciidamo dheeraad ah la dhigay magaalada iyo duleedka si ay u sugaan ammaanka wafdiga ra'iisul wasaaraha waa booqashadii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaruhu ku taga balcad tan iyo markii loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya si kastaba safarka ra'iisul wasaare Rooble ee balcad ayaa dad badan ku noqday lama filaan maadaama magaalada ay u nugushahay weerarada lama filaanka ee xoogaga al-shabaab qodobada kale ee saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee weerar culus oo lagu qaaday ciidamada Kenya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay weerar culus oo loo adeegsaday madaafiic oo saacadihii la soo dhaafay xoogaga al-shabaab ay ku qaadeen jasiirad kudha oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose wararka ayaa sheegay in madaafiicda oo ahaa kuwo culus lagu weeraray saldhigga ciidamada Kenya qaybtooda AMISOM ay ku leeyihiin halkaasi ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in tirada madaafiicda la riday ay ku hoobteen gudaha xerada halka kuwa kalena ay ku dhaceen banaanka saldhigga wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Kenya ay dhankooda rideen madaafiic jawaab u ah weerarka lagu soo qaaday saldhigooda kudha ee gobolka Jubbada Hoose dhinaca kale wararka ka soo baxay al-shabaab ayaa waxa lagu sheegay in kooxda ay konton madfac la heleen saldhigga kudha ee Kenya ay gaarsiiyeen khasaare xoogan xaaladda ayaa wali ah mid kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iyo hawlgal ka socdaan jasiirada kudha iyo agagaarkeeda kuwaas oo ay wadaan ciidamada huwan inta badan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku qaada saldhigyada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee koonfurta Soomaaliya qodobada kale ee saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah Itoobiya oo shaacisay inay gacanta ku dhigeen Soomaali la xiriirinayo ama xiriir balala TPL taliska ciidamada booliiska federaalka Itoobiya ayaa faahfaahin guud ka bixiyay howlgallada ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen gudaha dalkaasi kaasi oo la xiriira xaaladda degdega ah ee dawladdu ku soo rogtay Itoobiya taliyaha ku-xigeenka booliiska gaar ahaan qaybta ka hortagga dambiyada iyo taliyaha booliiska Addis Ababa oo si wada jir ah shir jaraa'id u qabtay ayaa shaaca ka qaaday in dawladdu ay gacanta ku dhigtay dad Soomaali ah oo la shaqeynaya kooxda TPL ee haatan dagaalka culus ka wada waqooyiga Itoobiya labada mas'uul ayaa tilmaamay in howlgalkaasi loo fuliyay si waafaqsan xeerka degdega ah ee la soo rogay mashaacin taliyaasha magacyada ragga Soomaalida ah ee la qabtay iyo halka ay ku sugnaayeen marka laga reebo eedeynta loo jeediyay ah inay la shaqeynayeen TPLF taliyaha ayaa intaasi ku daray in howlgalkan ka dhan ah TPLF ku sii socon doono iyadoo oo ku eedeysay in jabhadu ay ku howlan tahay sidii ay u abaabuli lahayd argagixiso hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay uu sii xoogeysanayay dagaalka u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo TPLF oo haatan ku dhawaad Addis Ababa si kastaba dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayaa saameyn daran ku yeeshay shacabka dalkaasi
waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. qodobada kale saaxiibayaal warka iyaga ku jirana waxaa kamid ah hub ka yimid Iiraan oo la shaaciyay inuu ku dulqulqulayo gudaha Soomaaliya iyo hubka oo la sheegay in ay leeyihiin mucaaradka dawladda si ay isku hubeeyaan ka hor doorashada dalka. sidoo kale saaxiibayaal hubkan ayaa la sheegay in ay hadda dawladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay oo ay qabteen ciidamada badda. hub ay Iiraan u qaybisay Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa si sharci darro ah loogu gudbiyay gacanka cadmeyn iyada oo la geeyay Soomaaliya. waxaa sidaas lagu sheegay daraasad ay soo saartay hay'ad caalami ah oo fadhigeedu yahay Geneva. hay'adda Global ee la dagaalanka dambiyada caalamiga ah ee abaabulan ayaa sheegtay in daraasada saldhig looga dhigay in ka badan 400 oo hub oo la geeyay 13 goobood oo kamid ah Soomaaliya 8 bil iyo kuwa la qabtay 13 doomood oo ay qabteen ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya. waa daraasadii ugu horeysay oo iftiiminaysa xadiga hubka sida sharci darrada ah u soo gudbaya Yemen ee la soo marinaya ama la geynayaba Soomaaliya. hubkan asalkiisa ka soo jeeda ganacsiga hubka ee Iiraan iyo Yemen ayaa la geliyay Soomaaliya ayay tiri daraasada oo la daabacay. Iiraan marar badan ayay beenisay in ay ku lug leedahay hubka la siiyo Xuutiyiinta. si kastaba cadeemo buuxdo oo waaweyn ayaa muujinaya in dawladda Iiraan ay hubkaasi qaybisay. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan iyo afhayeenka Xuutiyiinta ayaa labaduba diiday in ay ka jawaabaan eedeymaha. daraasada ayaa intaasi ku dartay baarayaasha ay awoodi waayeen in ay diiwaan gelinayaan magacyada dadka hubka iibiya iyo kuwa soo iibsada. ha yeeshee waxaa jira astaamo cad oo muujinaya in hubkan ay qaybisay dawladda Iiraan iyadoo taxanayaasha nambarada ee hubka muujinayaan in ay yihiin kuwa ka yimid Iiraan. waxaa sidoo kale jira in xogta laga helayo nidaamyada maraakiibta la qabtay iyo sirdoonka bini'aadamka ee kooxaha wax tixriibiya intuba ay la xiriiraan Tehran. mid kamid ah doomaha hubka siday oo ay qabteen ciidamada badda Mareykanka ayaa laga helay xogta safarka markabka oo muujinaya inay ka timid Iiraan sidoo martayna koonfurta Yemen oo ay tagtay Soomaaliya. daraasadan ayaa sheegtay in hubka uu gacanta u galay shabakada ganacsi sharci darro ah ka wada Soomaaliya kuwaas oo macaamiishoodu ay ku jiraan kooxo ishubeeyo ka hor doorashooyinka Soomaaliya, maleeshiya beeleedyo iyo kooxda Al-Shabaab iyo Daacish. qodobada kale ee saaxiibayaal idin haynana waxaa kamid ah madaxweyne Macron oo ka qoomameeyay hadal uu ka sheegay dal Afrikaan ah. madaxweynaha Faransiiska Macron waxa uu Algeria u hayaa xushmada ugu sareysa waxaana ka qoomameynayaa muranka diblomaasiyadeed ee ka dhashay cambaarintii ku aadanayd hogaanka dalkaasi. waxaa sidaas yiri Talaadadii ama sheegayba xafiiskiisa kadib markii la doortay 2017 Macron ayaa isku dayay in uu bedelo sooyaalka si ka duwan madaxdii ka horeysay waxaana qiray xadgudubkii ay Faransiisku ka geysteen Algeria. hase yeeshee xiriirka labada dal ayaa xumaaday October kadib markii uu ku eedeeyay nidaamka siyaasadeed iyo kan military ee Algeria in ay dib u qorayaan taariikhda dagaalkii madax banaanida si uu u huriyo nacaybka Algeria iyo Faransiiska. hadalkan uu jeediyay intii uu socday kulanka oo la qaatay faraca dadka ka qaybgalayay dagaalka kaasi oo uu baahiyay wargeyska ayaa Macron waxa uu sidoo kale su'aal ka keenay haddii Algeria ay qaran ahaan u jirtay ka hor gumaysigii Faransiiska ee sanadkii 1800kii. madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ka qoomameynayaa muranka iyo isfaham darrada ka dhalatay hadaladiisa. waxaa sidaas yiri sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada oo codsaday inaan magaciisa la sheegin. sarkaalkan ayaa intaas ku daray Macron oo xushmad ugu u hayo qaranka Algeria, taariikhda iyo madax banaanida Algeria. Algeria ayaa si carale uga falcelisay hadalka Macron ee October iyaga oo go'aankii ugu horeeyay oo Faransiisku uu ku dhimayo tirada dal ku galka ee la siin jiray shacabka dalkaasi Morocco, Algeria iyo Tunis. Algeria ayaa u yeertay safiirka Paris waxayna diyaaradaha militariga Faransiiska ka mamnuucday hawadeeda. saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan seen xariis kaaga codsanayna inaad subscribe inoo saadho like-na ay nagu dhiirigelisaan. faalladiina waa inoo muhiim insha Allah.